waxaa la yidhaha maxamed cabdi kariin maanta waxaan u soo baxnay nimankan meesha taagan iyo aniga waxaan u soo baxnay nimankan dhulka baabi'iyey oo dhuxul iyo geed engegan iyo wax ay sheebeen ay jirin oo haddana aan dhex taagannahay meesha aan joognana waxaa waaye subcounty leheley ward buraanure meeshaan u soo baxno isu soo bixina u daran hadda dhulka asaga way dhulkaas ma nool ilaa meesha laambiib iyo leheley gadaasheeda inta ka dhaxle wax dhul oo ku nagan iyo dhuxul iyo geed iyo abaq ku nagan malaha waxaan rabnaa anaga waxaan ugu soo foofayna waa wax alla wixii countiga Wajeer degmo baarlamaaneedkeeda oo dhan dadkii deganaay oo dhan wax ka dambeeyaba malaha intay wada imaadeen u soo duuleen habeenii dharaar baabuurtii baasha lagu wadaa kareetadii lagu wadaa marka meeshan alfaasa lagu soo galay dhulkii wuu nabaad guuray anaga wixii markaan aragnay waa iscelin waynay waxaan damacnay arrinta inaan shaqo ka qabanno taariikhda maanta oo tahay taariikh 6 waxaan codsanaynaa dadka dhibkan suubinaya oo adduunyada u sheegaynaa oo dawladda u sheegaynaa oo ayaga u sheegaynaa wixii taariikhda maanta oo taariikh 6 ay tahay wixii ka dambeeyo waxaan ku aragno aniga inaan talaabo ka qaadayno laakiin maanta taariikhda waa digtiin aan suubinayna meel kasta ee dadkan hadda kareetaalka oo dhuxusha gubaa meeshan dad baa dhalay dadaa soo dirsaday waxaan u digaynaa maanta dadkii soo diray oo dadkan dhalay taariikhda maanta wixii ka dambeeyay taariikhda 6 ay tahay dadkiisa inuu ceshado meel uu ka imaadaba arrintaasaan anaga maanta meeshan u imaanay wixii maanta kadib waxaa kaloo ii haray jiifafka locationka waxaan rabaa dadweynihii waxa dhulka maartay aga hooseeyo dhulka u weyn ay ka waaye inay nala howlgalaan rabnaa ka baajuwam laambiib iyo ilaa qulcaaley inta ka dhaxaysa iyo lehelay ceel cadow iyo qumbi inta ka dhaxle waxaan rabnaa in arrintan nala qabto nala howlgalaan rabnaa oo wax nagala ogaadaan rabnaa arrintan ay yidaahdaan ani magacayga waxaa la yidhahaa Bishaar Ismaaciil waxaan ka mid ahay dadkan shacabkan oo maanta isu soo abaabulay oo u soo kacay in ay dhirtaan la baabi'inayo in ay maaragtay ka dhiidiyay baan ka mid ah waxaan xanuunkeeda la joogi waynay dhibaatada lagu haya dhirtan Wajeer South muddo badan baan jidadkan ku safaraa anoon marka iyada danahan aan u socono dana kale isaga socdaan jidka maraa waxaan arkaa iyadoo wadadii la mari laayay oo waxa laga mari laayay ay tahay kareeta geed wado iyo tu dhuxul wado iyo tu qori wado marka maanta waxaan u soo kacnay waxa waaye in aan maanta dadka kareetooyinka geedaha guraaya ee dhulkan saan yeelay ee dhibkan wadanka ku haayo in aan u sheegno inay joojiyaan arrintan marka waan u baaqaynaa haddana ayaga waxaan raadinhaynaa waaye qaarna gacanta ku haynaa waxaan rabnaa annaga dhulkan in geed laga gooyo oo laan dambe intii la gooyo dhulkan lagu gubo ma rabno baaq baan rabaa inaan u diro dadkaas baaqaan u diray waxa waaye maanta wixii ka dambeeyo warning baan rabaa inaan siiyo laga bilaabo maanta digniin inaan siiyo laga bilaabo maanta ninkii aan aragna asagoo dhuxul gubaayo ama geed gooynayo ama kareeta wado oo dhuxul ku wado ama geedo ku wado aan qabanno wixii oo sharciga ugu talagalaan marinayna mana ogolaan doona laan dambe in laga gooyo dhulkan operationka maanta saan u bilownay waay waxaan rabnaa aan daba tirno arrintan dhir gurista ah oo geedaha la jaraayo oo baalki maxaa kaloo warkeeda haynaa in lagu gooynayo bahalaha barihan laba maadaba geedaha waa lagu guraa marka hore waxay sameyn jireen salka intii dab lagaga shiday geedka la duminay hadda barihan waxa soo baxday bahal exo oo weyn oo machine ah oo geedaha salka lagaga xiro oo magaalada lagu gado marka waxaan rabnaa arrintan inaan joojino mana ogolin laan dambe dhulkan in laga gooyo ma ogolin kareeta dambe oo geed wada ama dhuxul wadana ma ogolin hada maxamuud xuseen qaasim waxaan wadnaa ololaha environmental protection and afforestation wardka Ibrahim Ure ward yaan hadda taaganahay laakiin Wajeer South oo idil guud ayaan dhaqdhaqaaqaasi ka wadnaa waxaan marqaati ka nahay haddana masiibo ka dhacday leheley iyo ceel cadow laba dhaxdooda meeshan waa masaajid waraawo meesha la dhihi jiray waxa isugu imaaday ummad qowleysata oo
dhirtii eber ka siisay oo baabi'isay ana wadanka u dhalanin dhulkii waa baaba'ay geed ma noolo aragtinaadana haddaan intan eegno meeshan hal geed oo abaq oo muuqdo ma laha geedihii waxa soo haray yamcarka yar yara abaq waa dabar go'ay eber way u dhamaatay daba qabadkiisa hadda taaganahay waxaan aan taaganahay waa ilaa 25 geed oo qurac ah oo aan dib u abuuri karin hadda abuurkiisana qaadanaya ilaa 300 sano masiibadan aan haysataa dawladdiina maanta waxay noqotay daba ka riix shirkadihii dhaqaalaha ku qaadanay climate change ama county ha ahaata ama dawladda sare oo national government ha ahaata maanta wax dhaqdhaqaaq ka socdana ma laha ciidan baa nala socda hadda waa in aan howlgelinay noqotay ciidanka laftiisa oo dabada laga riix bulshada reer Wajeer South aan u baaqi rabaa reer Wajeer South oo duulaan baa idinku yahay oo dhab ee markan maadaama aan wareegi aan sameynay aan la kulanay bulsho aan wadanka u dhalanin shaqadoodana ay noqotay geed gur quraacda maanta Wajeer South ku yaashay waliba inta u dhaxaysay la helay iyo argan inta u dhaxaysay maanta intan waa baaba wax ka dambeeya ma leh dhul isku leeyahay noqdo dhulkan ha loo soo kaco idinka idin taala ha loo soo kaco bulshada reer Wajeer South aan la hadlayaa mar labaad dhulkan dareenkiisa nin walba ha qaada أنا فورما كانسل أقول علي عبد الحسين علي ما أنتوا حنجوجنا مساعد وراو هايد أولها باكو هايد الآن وابلامن جيدا كوش غلي وارتا مركو حنشيجينا عدينينا دتك ماشان جوجنا وادت ملكي ماضي لحد سب كامتوكي ماضي أو وجير كترسنتهاي وحار ما دتك أيجا from إبراهيم أوري إلى بسوي ميجاك إلى سكيلا بوجي كل ده دكان كان عايزه يعي جدي وأبر وارت وأبر وعن أصلنا دتك دليل عشرين ساعات على قبل لعبنا فنانا عقب موجودين وإن هاي كترسن جد درت إداقة إيو وارت ما أنت قبل لعبنا وان كتر رجلنا يعني شقيد أيام قبلنا مركز دوينا وحوشينا يسكي بحان كذا قراي وقارت تلاقي اللوكيشن كسكي بحان جيفتنا وحوشينا هايد أي عن وصيان يعني لا شقيان وهاي أنت كبر لما فرسنا ما أنت درنا وان قبلني جدي وأبر وحكلوا نوض بمالها مركوها الصنايع أنا وعبد الحسين علي يا دولد وحكي قبلت لكان أنا كان إن شاء الله واشقيني دولد مسوين أنا كايسوء ديارنا ونحن ينشق هذا قبل